وحيكون بالله دار الله وحده تبارك وتعالى والعاديات بان كدارتي فرده أرديي ضبحا صوحا أما هراك أما حورين طيب فالموريات فرده هورين يبان كدارتي قدحا مذك فالمغيرات فرده ويرر يبان كدارتي صبحا أرورتي وفأثرنا كعني به أي فيه صباح ذا لحظة نقعا حباس أما بوس أما بورد وفوصدنا دحقلي به صباح ذا لحظة جمعا كوح عدوه انت سنقول دارته إن الإنسان إنسانك لربه ربك لكنود وكدي دبدا وكو أبال درن أما جساريد بدن أما ديد بدن وإنه إساقو إنسانك على ذلك أرنكا كوركيسا كنود نمدا إيه إنو ربك نعم كيسا ديدو أرنكا كوركيسا لشهيد إساقا بمرخاتك إنسانك لفتي سيوا بمرخاتك وإنه إساقو إنسانك لحب الخير حولها جعيل كودا درتود لشديد ومد أدق كمتكو أدق وي حولها درتود ومحوها هيكوك عن أدق عادياتك علماء قار waxay yiraahdeen waa geela xajka marka loo socdo geela say ku fasiraan laakiin tafsiirka ka fiican loo badan yahay waxa weeyaan caadiyaadku inay yihiin fardaha dagaalamaya oo jihaadka ilaahay dariiqa ilaahay ku dagaalamaya waxa yeelay amal ilaahay jecel yahay bay hayaan saas daraadeed qiimaha ay leeyihiin darteed buu ilaahay ugu dhaaranaya marka fardaha ordaya dabhan yadbahna dabhan dabxiga waxa la yiraahdaa farasku markuu ordayo يعني وحويان صوحا وهراجة حيكون فسران علماء وهو صوت أنفاسها إذا عدونا مركي أرديان نفتور كأي نفتور هيان هي نفس أي نفس هيان هي الضبح اللي هذا معنا ساسوها يعني ساس يكون ساس يكون فسران معنا مركي الصوت كأي بحنا هيان هراجة كبحية مركي أرديان هي الضبح اللي هذا طيب marka ayagoo sida u sawdeynaya oo codka bixinaya oo hiraagaya fardaha ordayan ku dhaartay Allah tabaaraka taala fal muriyati ban ku dhaartay qadhan waxa laga wadaa markay farduhu ordayaan qoobkooda shaygii adag ay ku dhuftaan dhagax iyo wixii lamida dab ba ka kacaya yani xoog ay ugu dhufanayaan marka yani sidii madag la dhaliyo kale ka dhiganta madaga wax la yiraahdaa marka baadiyaha oo kale geedo waxa jira dabka laga dhaliyo marka laba qori baa la soo qaaday waa la isku xoqayaa marka la isku xoqayaa ihtikaaga iyo isdigaaga ka dhaxeeya qoryaha la isku xoqayo dabku ka dhalanaya marka taasoo kale waa fal muriyati fardihi hurinaya baan ku dhaartay qadhan madagta hurinay ama yani qadhan garaacis ay lugahooda ku garaacayaan dhulka dhagaxa iyo wixii lamid ay ku garaacayaan isku dhaca ay isku dhacayaan baa la yiraahdaa qadxiga la yiraahdaa طيب isxoqida isxoqayaan ayaa la yiraahdaa طيب فالمغيرات بان ku dhaartay fardihi weeraraya subaxnimada waa waqtiga nabiga sallallahu alayhi wasallam oo inta badan dagaalka weerarka u qaadi jiray oo habeenkii oo kale haduu meel ku soo hagaago uu bariisin jiray wuxuu dhageysan jiray balin aadaan iyo wax ka dhaco meesha isaga hadii aadaan iyo wax yeero marka magaalada iyo tuulada iyo laba weerari jiray هذه مركها آذان لقوا الصباح دي وكو قاعين شر النبي صلى الله عليه وسلم فالمغيرات صبحا فأثرن كعنيي به ويرر كا أما أرد كاس السبب تيسا ولا ليه كرا بالعدو أرد كاس السبب تيسا وحكو كعنيا نقعا بص يبور أما به ذو فيه بين نقونه بمعنى الصبح وقت قاعد حديث وحي كعنيا نقعا وفرضه مركا إسكالان ودقالكو بالوضو بص با استاكت بور با كعية فوسطنا الحقليي به وقت قاعد حديث أما به أرد كاس السبب تيسا كو دحقليي جمعا كوح عدوه قوتوين يعيدما فرديي سي كذا دحقليان ودقال كو قاديان intaasaan ku dhaartay barbiir tabaaraka wa taala wa madaahirtii mashaahida dagaalka jihaadka dagaalka sharciga ah intaasaan ku dhaartay innal insana li rabbih lakanud ki insaan la dhihi jiray waa mid rabbigi ku jisaaro waa mid nicmadiid badan waa mid abaal darro badan allihii abuurtay u nimceeyay
barwaaqada siiyey yani wax way maamulaya wax walba siiyey ma ogola daacadiisi ma ogola nicmooyinkuu siiyey uma ictiraafsana waa kanud jaxuud waa mid nicmo diida badan waa inuu nicmo diid yahay oo ilaahay nicmadiisa uusan ka shuhriyinna isagaaba markhaati ka ah wa innahu isagu calaa daalika arrinkaa korkiisa la shahiidun isagaa markhaati ah see markhaati uga yahay bilisaani xaalihi waa markaad dhaqankiisa fiiriso isagaaba isku markhaati furayaba markuu nicamkii ilaahay siiyey uusan ilaahay ku aqoonsanaynin markuu nicamkii ilaahay siiyey tabaaraka wa tacaala xumaan u isticmaalayo markuu ilaahay nicmooyinkii siiyey uu yani ilaahaygi siiyeyba kula dagaalamayo iyo xaqiisii kula dagaalamayo yani way iska caddahay weeye xaalkiisa iyo waxa ka muuqda ayaa markhaati ka ah inuu ilaahay nicmadiisii diiday oo ku jisaaray marka waxaa la yidhahdaa lisaanulxaal bini aadamka waxna wuxuu carabka ka sheego lisaanulxaal baa la dhahaa waxna wuxuu xaalkiisu ku tusayo oo isaga ka muuqda ayaa la yidhaahdaa lisaanulxaal baa la dhahaa marka xaaladiisay ka muuqataa sidaasuuna markhaati uga yahay oo isaga isku cadaynaya inuu yahay yani kanuud inuu yahay wainahu lixubbi lkhayri la shadiid xoolaha jacaylkoodana waa ku adag yahay bimacnaa adayga waxaa laga wadaa albakhiil almumsik waa bakhayl gacan adag xoolo markii la siiyana xuquuqdoodii ma guto sake ka bixin maayo ixsaan ka samayn maayo sadaqayn maayo saas way macnaha waa cishanaya wata ilaahay meel kale inoogu sheegay tabaaraka wa tacaala qul low antum tamlikuuna khazaa'ina raxmati rabbii idan la amsaktum khashyata alinfaaq wa kaana alinsaanu qatuuran sideedaba ibni aadamku sidiisaba waa hayste waa cishade wax bixinta iyo deeqsinimadu dabeecad asal uma ah ayib marka xoolaha jacaylkoodana waa ku adagya afalaa yaclamu miyuusan ogeyn idaa goortii bucira la soo faago ما في القبور وحقبور تجودهذا كتير مركل للسوفا لسوء عررجو أو وحصل لصوم وتشيو ما في الصدور وحلابها كقرصون كتيرنا لصوم وتشيو وبنانك الله كانوا إن ربهم ربي جود بهم إيجا يومئذ مالك لخبير ومدح قالوا حوك ما قرصونا يعني وحوي قبور توحى كتير للسوفا جو وحلقوا وضع شركي بكتير قبورته shirkiisii marka dib la isugu soo celiyo qabrigii iyo godkii la geliyayna laga soo saaro banaanka la keeno kadibna wixii qalbigiisa ugu qarsoonaana isagana la soo daahiriyo la soo kulmiyo xusilada waxa la yiraahdaa inta la soo ururiyo oo yani la soo daahiriyo in la kala saaro marka qalbigaaga maxaa ku jira mabaadidii baa ku jirtay gaalnimadii iimaankii khayrkii sharkii wixii qalbiga kugu qarsoonaana waa la soo saari waa la soo daahirina jidhkaagii dhulka ku baaba'ayna isagana waa la isu keenayo waa la soo saaraya maalinka banaanka taagan tahay marka adigoo waxaad rumaysnayd wata jidhkaagiina dhameystiran yahay caqiidadaadii iyo mabdii aad adduunka ku haysatayna ay ku jirto ayaa lagu keenayaa wixii qalbigaaga ku jiray banaanka la keenayaa marka waxba ku qarsoonaan maayaan maalinkaasi rabbigood xogogaal buu u yahay maxaa laga wadaa hadda xogaalnimada waxaa ka dhalanaysa inuu xisaabinayo abaalkooda marinayo maalinkaas abaalkiisa la marin doona bini aadamka adduunka alihiisa lagu kari leeyahay kanuudka ah ee kadeedka madax adayga iyo kufriga laga kari leeyahay halkaas dambaysa waa afala ya'lamu miyuusan ogeyn ibn aadamku maalkiya meeshuu ku dambayn doona idaa goortii buuthira la carrago ama yani wax weeyaan la faago ما في القبور قبريضة دحوده waxa ku jiro oo jirarkii iyo jirkii bini aadamka galaya marka la soo saaro oo la soo banaanka la soo dhigo oo waxusila yani la daahiriyo la muujiyo waxa la yiraahdaa xusilada waa al-jam'u wal-idhar inta la kulmiya waliba la soo muujinaya in la kala sooco la kala saarana waa lagu fasiraa ma fi suduri laabaha waxa ku jiray markii muxuu ahay la soo muujiyo la soo daahiriyo miyuunan ogeyn إن ربهم رب جود بهم يجا يومئذ مالك لخبير مدح قالوا إنه يهي أو حوك قرصونين روح البنوحي سيلا مرين دونه هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم